mas-uuliyiintii uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Togwajaale ee Somaliland. Socdaalkani ayay ujeedadiisu tahay xoojinta xiriirka iskaashi iyo midka walaalnimo ee ka dhaxeeya labada shacab ee walaalaha ah. mas-uuliyiinta waxaa ku qaabilay xuduudka deegaanka Soomaalida iyo Somaliland mas-uuliyiin sarsare oo ay ka mid ahayeen wasiirka arrimaha gudaha Somaliland mudane Maxamed Kaahin Cabdi iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane Salebaan Cali Koore. marnabo ma tiideen qariib oo waxaa timaadeen dhulkii hooyo waxaana sidaas yiri wasiirka arrimaha gudaha Somaliland. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa annagoo ka kooban wafdi dawladda Somaliland ka socda oo golaha wasiirada ka socda gudoomiyaha gobolka Gabiley iyo degmada Togwajaale iyo mas'uuliyiin kaleba madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliyeed Mustafa Maxamed Cumar iyo wafdiga uu hogaaminayo ka socda dawladda deegaanka Soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa madaxweyne soo dhawaada qariib ma tiidin dalkiinni baa timaadeen si rasmi ah idinku soo dhaweynaynaa maanta jamhuuriyadda Somaliland aad iyo aadna waa mahadsantiin. geestiisa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in ujeedada socdaalku ay tahay xoojinta xiriirka ka dhaxeeya labada shacab ee Somaliland iyo deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale in laga wada hadlo xaaladaha ka soo cusboonaaday dalka Itoobiya. aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiir Maxamed Kaahin oo halkan ugu soo dhaweeyay waxaan u soconaa inaan mas'uuliyiinta iyo madaxda Somaliland kala wada hadallo arrimaha iskaashiga guud dhanka amniga dhanka dhaqaalaha dhanka isdhexgalka bulshada sida la socotaan isbedelkii kadib isbedel balaaran isbedelkii ka dhacay deegaanka Soomaalida kadib isbedel balaaran baa ka jira dhinaca iyadoo dadku hore ay walaalo wahaayeen haddana isbedel badan baa ka jira dhinaca isdhexgalka iyo dhinaca xiriirkaba marka Somaliland oo ah dadaan walaalanahay dawlad aan jecelnahay inaan xaaladaha guud ee soo kordhay ee geeska iyo saameynta inagu yeelan karaan iyo qaabkii la isaga kaashan lahaa inay saameyn xun inagu yeelan wixii wanaagana loo sii adkeyn lahaa ayaan u soconnaa mar kale aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka soo dhaweynta wixii kale intaa dheer marka aanu shirka dhamaysano haddii la yidhaahdo la wadaagi doonaa mahadsantiin. xiriir ganacsi iyo mid walaalnimo oo guyaal badan jiray ilaa dunidani casriga ah ka hor oo ka dhaxeeyay labada shacab ee Soomaalida ah ayaa xididaystay 3 sano oo isbedel dimuqraadiyadeed iyo mid siyaasadeed oo ku salaysan qadarinta wax wada qabsiga iyo la dhaqanka walaalaha jaarka ah ee la timid xukuumadda haatan majaraha u haysa deegaanka Soomaalida.